Bismillaahi Raxmaani Raxiim daawadayaal ku soo dhawaada channelka Calasta Cunto Post waxa hadda jira waxaan nooga baratay wararka caalamka iyo xaaladda Ukraine ka taagan. Saraakiil sare waxaa dowladda Mareykanka ayaa sheegaya maalintii Axadda shalay Talaada gacmeedkii soo saaray ciidamada fara badan oo dowladda Ruushka ay soo dhoobeen dalka Belarus waxayna ka digeen in dowladda Ruushka ay dagaal qaadi karaan anytime laakiin afhayeen oo hadlay Kremlin-ka ayaa sheegaya magaalada Moscow inaysan marnaba diyaar u ahayn dagaal ilaa ay dalabkooda ka helayaan inaan Ukraine lagu darin NATO. xagga kale madaxweynaha dowladda Mareykanka John Biden maalinkii Axadda shalay Talaada mar wariyaashiisa la weydiiyeen aqalka cad ayaa sheegay asagana inaan marnaba la aqbalin doonin in Ukraine ka mid noqoto NATO. La taliyaha xagga amniga madaxweynaha dowladda Mareykanka Jack Sullivan ayaa asagana cadeeyay in ilaa Britole ilaa saacad dambe ilaa wiiga soo socda dowladda Ruushka ay qaybsan doonto dalka Ukraine. Ilaan arrintan waxay u baahan tahay ayuu sheegay Jack Sullivan in lagu xaliyo diplomatic pact. Dowladda Mareykanka ilaa hadda waxay kusoo qulqulayaan ciidamadoodu dalka Poland waxaana sheegeen afhayeen oo hadlay dowladda Mareykanku inaan arrintaas la baajin doonin ilaa dowladda Ruushku ay ka naabanayso tillaabada dowladista iyo hanjabaadaha ay ku hayso dalka Ukraine iyo saaxiibadooda NATO. Wuxuuna sheegay afhayeenkaas inay cashar u dhigin doonaan dowladda Mareykanka mana yaqaanaan ayuu yiri kuwa ka horreeyay ayaanu u dhignaa cashar laakiinse dibadbaxayaal ayaa hadda caalamka dhan hareeyay dalalka midowga Yurub, Canada, Australia, Mareykanka dhammaantood waxay dalbanayaan in la joojiyo dagaalka waxaana ku baaqeen nabad waxaana dhahan dagaal xal maaha waa in arrintan waan lagu dhameeyaa sida ugu dhaqsaha badan anaga waxaan doonaynaa waa nabadgelyo arrintan waxaan lagu dhameyn karaa baa dhahan wada hadal ee looma baahna dagaal daawadayaal meel walba joogtaan waxaan nagala socotaan waa Calasta 24 Post waana maasantihiin daawadayaal.